marka noloshan adduunyada macaankeyga raaxadeeda jannadeeda waa ilaahay macrifadiisa alladina aamanu wa tadma'innu qulubuhum bidhikri illah ala bidhikri illah tadma'innu alqulub ilaahay alladina aamanu kuwa ilaahay rumeeyay ee qulubtoodu taacada ilaahay iyo dhikriga ilaahay ay ku xasilayso ilaahay baa yidhi alaa intabihu ilaahay baa inoo nasteexaynaya ilaahay baa inoo yeedhaya ilaahay baa inoo khayr miiraya walaa yunabbi'uka mithlu khabiir fas'al bihi khabiira waman asdaqu min allaahi qiila ilaahay baa kuu warramaayo ku leh war qalbigiinnaasi wax kale ku xasili maayo aniga macrifadeedu qalbigiinnu ku xasilaya qalbigu salaadu ku raaxaystaa qalbigu qur-aanku ku raaxaystaa qalbigu dikriga ilaahay buu ku raaxaystaa qalbigu taacadda ilaahay buu ku raaxaystaa nacam nin a'immada muslimiinta ka mida ayaa odhan jiray 5 min dawaa'i alqalbi 5 ayaa qalbiga bini aadamka dawaysa tilaawata alqur'aani bitadabbur qur-aanka oo lagu akhriyo tadabbur iyo tafakkur iyo qiyaama alleyl iyo saacadaha dadku ay jiifaan oo la kaco ilaahay tabaaraka wa tacaala la hor joogsado wa tadarruc cinda asaxar iyo waqta asaxar xilliga suxuurta ay tahay oo ilaahay jalla wacalaa lana munaajoodo wa khalaa'u lbadni iyo calooshaadoo mar walba badhnaata waa kasratu siyaam bay culimmadu leeyihin inuu qofku soomkiisu bato wa mujaalasatu saalixiin dadka war wanaagsano lala fadhiisto shantaasay culimmadu yidhahdeen qalbigeed dawaysaa tilaawata alqur'aani bitadabbur kanaga qur-aanku maasha allah waan iska akhriyayna tadabburkii baa inaga maqan asxaabta rasuulka radia allaahu canhum laga yaabaa hal aayadoo qur'aan ah sida habeenka ugu celcelinayaan buu waagu u baryaayay wabadaa lahum min allaahi maa lam yakuunuu yaxtasibuun sufyaan athawri raximahullah aayaddaa qur-aanku habeenkii markuu salaatileylkii xidhay markuu gaadhay wabadaa lahum min allaahi maa lam yakuunuu yaxtasibuun waxaysan ilaahay ka malaynayn ayay kala kulmeen banka qiyaame hadduu lahaa khayr baan wataa may khayrkiisii ma aha arrintu way ka weyn tahay salaad baan wataa salaadda waa lagu badbaadayaa laa shakka laakiin mu'minku halkaa markuu banka qiyaame ilaahay hor joogsado salaaddii iyo soonkiisii eegi maaye ilaahay raxmaddiisa buu maanta eegaya qofka mu'minku ilaahu raxmaddaadiin buu leeyahay aayaddaa qur-aanku waagu ugu bariyey abibakr sidiiq radia allaahu canhu markuu nebigeennu xanuunsado xanuunkii la dhacay ayaa nebiga lagu yidhi salaaddii baa taagan nebi allow markaasuu nebigu yidhi abubakar u sheega ummadda salaadda ha ka bixiye caaisha radia allaahu canha oo ag taagnayd nebiga ayaa ku tidhi inna abaa bakrin rajulun raqiiqun abubakar waa nin qalbi jilicsan weeyaan idaa qara'a alqur'aana halabahu lbukaa hadduu qur-aanka akhriyana oohintiisa ayaa qur-aanka ka qaalib noqota wa hada cumar alfaaruuq radia allaahu canhu salaata leylkii habeenkii markuu masjidkii nebiga soo galay wuxuu arkay inan yar oo suuradda tuur ku tukanaya qiyaama leylkii qur-aankiisii buu dhegaystay markuu gaadhay yarkii yaraa inna cadaaba rabbika la waaqic cadaabka rabbigaa waa kii dhici doona weeyaan aayadda cumar markii uu gaadhayna dhulkuu ku dhacay cumar binu khadaab intoo la qaaday ayaa gurigiisii la geeyey bil ku dhan buu xanuunsanaa xanuunkiisa meeshuu kaga yimidna lama ogeyn miqdaad radia allaahu canhu saxaabigii la odhan jiray miqdaad ibn alaswad habeenkii markuu xaaskiisa ag seexdo bay tidhi sidaasuu u galgalan jiray sidaasuu habeenka u galgalan jiray sidaas markaasay ku tiri war maxaad la galgalan maad bugtaa maad seexatidaa markaasuu odhan jiray cabsida xasuusta aan xasuusanaya naarta jahannama ayaa hurdadii raaxada iga qaaday buu odhan jiray yakhaafuun qur-aankay akhrinayeen iyaku laakiin tadabbur bay ku akhrinayeen tafakkur bay ku akhrinayeen laga yaaba hal aayadoo qur'aana habeenkaa dhan inuu ku soo jeeday nebigeennu calayhi salaatu wassalaam waa kii bilaal baa u yimid ee salaaddii markay gaadhay yaa rasuulallah salaaddii baa lagaa sugayaa waa nebigoo lilmada ka daadatay maalintaas garhkiisii intay dhaaftay laabtiisii qoysay halkii wejiga u dhulka ku hayna way qoysay markaasuu nebigu ku yidhi yaa bilaal xalaytoola aayadahan qur-aanka igu soo degay weylun liman qara'ahaa walam yatafakkar inna fii khalqi asamaawaati waalardi la aayaatin liuli lalbaab الذين يتفكرون في خلق السماوات إلى آخر سورة آل عمران آياتها سحالة يقصوا دقيب النبي يقول نكا آياتها أخريا إن أنت تدبرين أن تفكرين قاسوا خسارين ورسولكم تدبر صدح عمل مركز هاي سهداب قلبك خشوعات كوي دبي علماء دولادين قلبك سؤول لسيه ورد صدوين
quraanka markaad akhriyayso iyo salaada markaad ku jirto iyo markaad ducaysanaysid quraanka markaad akhriyaysid iyo salaada markaad ku jirtid iyo markaad ducaysanaysid saddexda marxalo markaad ku jirtid haddii ilmadu ay ka daadan weydo qalbigaaguna uu khushuuci waayo waxay culimadu leeyihiin qalbigaas uu bukaaye qalbi xanuunsan ilaahay alla urtagin